halkani waa halgan raadiyo waxaad xiliyadan oo kale inooga barateen waraysiyo warbixino iyo xogaga daahsoon waxaa qadka telefoonka noogu jiro tiktoriso Jamaad Xuseen Jamaad ku soo dhawow radio halgan waa ku dhawaay caanoy idaacadda iyo adiga waa idin salaamaya waa ku dhawaay waxaa cabasho iyo cadaalad darro tirsanaya qoys ku sugan magaalada Beledweyne waxayna ka tirsanayaan guddiga masaajidka markaa ay isku haastaan gurigaas ayna leeyihiin waxaan tirsanaynaa cadaalad darro waxaana laga boobayaa gurigii aan la khaynay Jamaad dadka ama miidiyahaba siyaabo kala duwan ayay u kala fasireen ama loo kala qaaday maadaama aad tahay qof ku sugan magaalada Beledweyne oo wax badan ka og bal waxaad inaga siidaa faahfaahin halkaas radio halgan waa ku dhawaay radio halgan waana kaaga mahadcelinayaa waqtiga ay siisay marka inta laga soo tago qoyskaas waxaa la yiraahdaa reer Ismaaciil waxaa iska lahayd guriga eedadood aabahood la dhalatay iyagaana gacanta ku hayay eedo waxba ma aysan dhalin alxamdulillah iyagaa sakaraadii iyagaa duubay gurigana iyagaa iska leh waa gartay marka guriga ma dhaxaltooyo ahaa say wax u jiraan qoladan guddiga masaajidka waxay ku andacoonayaan markii ay u gudbiyeen maxkamadda degmada Beledweyne waxay leeyihiin gurigan qoyskan ijaar u bixi jiray oo ijaarkaasi guriga masaajidka ay ku bixi jireen aniga waxaan aqaanaa gabadha Nasra la yiraahdo waxaana bartay 2007 waxaan xudagaal ahaan aan u ogahay reerkaas inay maxkamad soo tageen maxkamadiina ay ku tiraaday eedadiin wixii gurigan kira ahaan loo gali lahaa maadaama idinka xaq u yeelateen gurigii eedadiin sadaqa ugu dara masaajidka sidaasaa nala soo yiri gabadhaa igu tiri waana lagu soo kala baxay guriga reerkaasaa loo xugmiyey adigu muddo laga joogo dhowr sano sanadada iyo ma xisaabsano sida aan ognahayna eedadood aabahood la dhalataa guriga iska lahayd wiilkayna ku wareejisay okay dhaxal ahaan u siisay okay bal sawir naga sii guriga halkuu kaga yaala magaalada Beledweyne Dr. Jamaad wuxuu ku yaalaa xaafadda Buulaxaable ayuu ku yaalaa xildhibaan raaxe gurigiisa ayuu hal guri u dhaxeeyaa gurigaas xitaa waxaa iska leh reer dhaqane ilmo aar iska leh guriga u dhaxeeyo guriga reer dhaqane ilmo aar uu ka sii jeedaa dhanka masaajidku ku sii jeedaa maamadan aqaanaa wiilkan aqaanaa gabadhan aqaanaa gurigaas aniga oo maskaxdayda tamaam tahay ku dhashay magaalada Beledweyne qof weyn ah ku koray waxaan cadeynayaa reerkaas meel kasta ee sheeganay inay guriga leeyihiin okay Dr. Jamaad guriga iyo masaajidka maxaa iska galay awal ma isku dhulmi ahaan jireen waagii hore mase say wax u jiraan guriga iyo masaajidka iyo guddigan halkay iska soo galeen gurigu hal gurigu isku ahaa wada laga dhex bixiyay qaybtaas waqafay ka dhigatay qaybtaana degaanay u ahayd inta aan aqaano laba qol oo ka sii jeeda dhinaca waqooyiga iyo qol ka sii jeeda dhinaca bariga iyo dabakaayo oo dhinaca muxuu ahaayay ka sii jeedo galbeedka una jeeda dhanka koonfureed iyo daashaha ku yaala gurigaas intaana duqda deegaanay u ahayd inta deegaanka u ahne ilmaha ay eedada u tahay ee sakaraadi ee gacanta ku hay ayay siisay marka waxa isku dhagan waa guddigii iyo ilmahay siisay maamada anigu magaalada waan ka maqanahay safaraan ku maqanahay hadda idaacadda suuq baan baraha bulshada baan ka arkay hadda cidda ku dhagan ma dareemi karo ciduna si guud xawaadle eedeen mar labaadna laba jifo xawaadle ka mid ahay eedeen laakiin kolley waxay isaystaan waa shakhsiyaadka ay isaystaan waxaan dhihi lahaa maanta qoys
leel kasta maxamed oo ku nool gobolka Hiiraan ama magaalada Beledweyne wuxuu salahayn hadduu nagu qabsado xitaa kuwaan xaqay u leeyihiin in la siiyaan qaba aniga reerkaas xaqa anu ku aadaama guriga ayaga iskala aad iyo aad u mahadsan tahay waraysigaas aadna siisay haddii aan nahay Baxda Radio Halgan Doctoriso aada u mahadsantahay waa kaaga mahad celinayaa haddii aad doontana guddiga masaajidka waa kugu soo xiraaya